الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ودرسي أفريد تبنات كمدها دروس كتاب كان الأصول من علم الأصول للعلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: العام تعريفه. العام لغة caamku fii lugati alcarab ashaamil weeye waa ka waxa uu tusinayo ama loo dejiyey wada gaadha ee wada koobsada ee maasheeya. marka waa ism faacil oo ka yimi cama yacumu idaa shamala. ولهذا بوري الطوفي رحمه الله: العموم في اللغة الشمول. cumuumku luqa ahaan waa maashaynta iyo wada gaadhista. marka lafdigaasi waa caam, macnaheedu wuxuu noqonayaa waa lafdi wixii loo cayimay inuu tusiyo dhammaan wada tusinayo, wada gaadhayo, wada maashaynaya. waxaa la isweydiin karaa ma alfarqu bayna alcaami waalcumuum. alcaam waalcumuum maxaa u dhexeeya? oo laba erey oo labadaba fuqahada iyo usuuliyiintuba ay isticmaalaan. alcaamu waa lafdu lmutanaawil lijamiici afraadihi. alcaam waa magac lafdigu iska leeyahy oo lafdiga sifo looga dhigaa. hada lafdu caamun, kaasi waa lafdi caam ah. marka alcaam waa ismu lilafdi weyi, waa magac lafdigu iska leeyahy. alcumuumna waa tanaawul lafdi lima saluxa lahu, waa tusinta lafdiga caamka ah uu tusinayo afraaddiisa oo dhan. ayib, wahada daliilu caamun baa la idhahda, daliilu cumuumun lama idhaahdo. xagga dilaaladiisa iyo tusintiisa marka laga hadlaya waxaa la ihahdaa hada yadulu bicumuumihi. waاصطilaaxana allafdu waa ereyga almustaqriqu ee wada gaadhaya ama wada koobsanaya lijamiici afraadihi, afraaddii uu magaca u ahaa dhammaantood, bilaa xasrin, iyadoo wax koobisi aanay istiqraaqa la socon. mithlu wadalika mithlu qowli llahi tacala o ilah uhi: ina alabraara, kuwa samafalayaasha ama khayr sameeyayaasha dhammaantood la fii naciimin, naciim bay ku sugan yihiin. marka markuu yihi allafdu, waxaa meesha ka baxay wixii horta waa jinsi oo caam iyo khaas iyo mutlaq iyo asmaa lcadad iyo mushtarak iyo dhammaan way soo gelayaan lafdigaas. laakiin lafdigaas wuxuu saarayaa ficilka, oo ficilka cumuum laguma sifeeyo. hada alficlu caamun fi kada lama yidhaahdo. alficlu laa yusafu bilcumuum. waa kuwa idhaahda alcumuuma min cawaarid alalfaad ay min sifaat alalfaad. alfaada iyo dhawaaqyadu sifa ay yeeshaan weeye cumuumku, laakiin cumuumku sifo uma noqdo afcaasha. haddii la idhaha facala nabiyu kada, ficilka nebiga caam lagama dhigi karo, oo afraadda ficilkaasi oo dhan inuu wada sameeyey looma deliishan karo. ومثلا دخل النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة فصلى فيها ركعتين. صلadaasi oo ficilkaasa cumuum ma tusinayo, oo lama odhan karo wixii salaad la odhan jiray oo dhan buu nebigu ku tukaday, faral iyo sunnaba. iطlaaq bay afcaashu tusisaayo oo salaadunbuu ku tukaday, tay tahay in bay tay la raadiyo.
faral bay ahayd ama sunna ahayd labada ma wada noqon karto labada teebay ahaydun waa in la raadiyo ayib marka lafdu wuxuu saaray baynu idhaha alafcaal ficilku cumuuma tusiyo muxuu ficilku tusiyaa ficilku iطlaaq buu tusiyaa waaxid hayru mucayana buu tusiyaa ayib almustaqriqu lijamiici afraadihi lafdiga afraaddii loo dejiyey inuu tusiyo oo dhan wada koobsanaya mid ka midii aanu ka baxsanayn fakharaja waxaa ku baxay biqowlina almustaqriqu ka wada maasheynaya wada koobsan lijamiici afraadi maa lafdigii laa yatanaawalu aan gaadhahayn ilaa waaxidan mid qura mooyaane midun ku tusinayay kalcalami sida magaca cidigaar ule sida zayd iyo camr iyo magacyada lamidka isaga caam la odhan maayo ilaa afraad uu istiqraaqayaa ma jirteen iyo wanakirati nakiradii fii siyaaqi lihbaati xaalo nakiradaas ay dhacday sugis siyaaqii xaalo ay dhacday nakiratu fi siyaaqi lihbaat iyaduna cumuuma tusiso ilaaq bay tusisaa iyaduna waaxid hayru mucayana biqowlihi tacala ila uhi fatxriiru raqabatin oo ereyga imika raqaba waa nakiro wax nafyi iyo wax nafyi la macnaa ay toona kama horeeyaan ihbaat waa hadal la sugayo weeye marka cumuum tusin mayso ilay addoon xoreyntii marka la yidhi waxaa addoon la yidhaha oo dhan xoree macnaheedu maaha waxaa addoon la yidhaha oo dhan imika raqabadani magacu ma aha markay halkan oo kale ku jirto waa wax xaqiiqada addoonnimo lahun walow mid quraba ha noqdee liannaha maxaa yeelay annakiratu fi siyaaqi alihbaat laa tatanaawalu ma koobsanayso jamiica alafraadi afraaddii magacaasi lahaa oo dhan calaa wajhi shumuul si markaa maashayn iyo koobsashoa u wada gaadhi mayso marka calaa wajhi shumuul wuxuu sheekhu kaga ixtiraazayaa calaa wajhi lbedel waa nakiratu fi siyaaqi alihbaat afraaddeeda calaa sabiili bedeliya bay u koobsataa oo ereyga raqaba addoomo o dhan buu tusinayaa laakiin hal mar ma wada tusinayo calaa sabiili bedel buu u tusinayaa oo addoonkan hal addoon unbaa lagaa rabaa addoon kalea bedel ka noqon kara addoon kalea bedel ka noqon kara addoon kalea bedel ka noqon kara laakiin uma tusinayo calaa sabiili lcumuum wax addoon la idhaha o dhan xore maaha macnihiisu wa inamaa tatanaawalu nakiradaasi fi siyaaqi alihbaat ku timi waxay gaadhaysaa waaxidan mid hayra mucayanin aan la cayimin oga caamku afraaddii o dhan buu tusinayaa mutlaquna waaxid buu tusinayaa aan la cayimin oo kuwa kale mid waliba ka kale bedel uu ka noqon karo wakharaja waxaa ku baxay biqowlina aynu nidhi marka eeg halkaa waxaynu ka yaro fahanay alfarqu bayna alcaam walmutlaq oo cumuum lcaam shumuuliyun caamka cumuumkiisu waa shumuuliyo afraaddii uu magaca u ahaa dhammaantoodo mid aanu ka maqnayn ayuu ku tusinaya haddii tusaale ahaan la idhaahdo actiq kula riqaab waa wax allaale waxa addoon la idhaho o dhan xoreo mid ha ka tegin cumuum mutlaqna waa cumuumun bedeliyun oo waaxid buu ku tusinayaa aan lagu cayimin oo kuwa kale ay bedel ay ka noqon karaan hada huwa alfarq walihaada baa baabkan iطlaaqa iyo taqyiidka culimada qaar ay hoosgeeyaan caamka waayo isaga laftiisu cumuum buu tusinaya lakiin cumuumkiisu waa bedeli waaxid hayru mucayana buu ku tusinaya kuwa kale ay bedel ka noqon karaan halka caamku ku tusinayo wax allaale wuxuu magac u yahay oo dhan oo aanu mid ka maqnayn maala haddii lagu dhaahdo akrim kula ulaab kula ulaab maxayna tusinaysaa allaale waxa arday la idhaa o dhan oo mid ka mida aan laga tegin haddii lu dhaha ka waram akrim ulaaban arday maamuus qaar ka mida ardayda
oo aan lagu cayimin oo intaad iyaga iska dayso kuwa kale aad ku bedeli karto ayuu ku tusinaya. marka halkaa uu ka yidhi sheekhu wainamaa tatanaawalu waaxida gayra mucayanin, waaxidkaasi laga daayaa bay ahayd, waayo muطlaqu waaxid in ka badan buu noqon karaa. waxayd markaa inuu idhaahdo bacda gayra mucayanin, bacdi aan cayinayn, waaxid ha noqdo ama ha ka dambeeye ama ha ka badnaadee. wakharaja waxaa ku baxay biqowlinaan idhi bilaa xasrin maa yatanaawalu, waxaa gaadhaya ee tusinaya jamiica afraadi afraaddiisao dhan maca alxasr, iyadoo koobisahay la socoto iyo meeluu ku dhammaada. hadduu lafdigu afraaddiisao dhan ku tusinayo, laakiin afraadda uu ku tusinayaa bardhamaad ay leeyihiin, isaguna caam lama idhaahdo. ka asmaa ilcadad sida magacyada tirada, miatun wa alfun wa naxwuha, ama miatin ka miatin wa alfin iyo wanaxwihima, sida milyuun oo kale, milyuun. afraad badan baa hoos imana soo maha mia marka la dhaha dee waaxid ilaa boqolka inta laga gaadhayo, laakiin de waa maca alxasr oo boqol wixii ka dambeeya kuma tusinayo, mia kuma tusinayso. alfana alf kun wixii ka dambeeya xataa waaxidka ka dambeeyana ha noqdee kuma tusinayo. marka haddii uu ereygu afraad fara badan uu ku tusinayo, laakiin afraaddaasi bardhamaad ay leeyihiin, isaguna caam maaha. marka allafdu waxay saartay oo caamka ay ka saarto caam aan noqonan baynu nidhi alficl. almustaqriqu lijamiici afraadihina waxay saartay almuطlaq, oo muطlaqu bacdi aan cayinayn buu ku tusinayaa, ee afraadda oo dhan hal mar kuma wada tusinayo. warcad ma sida taxriiru raqaba oo kale, imika wax alaala waxaa addoon la idhaaha oo dhan ereyga raqaba hadda ku tusin maayo, ee wuxuu ku tusinayaa bacdi aan cayinayn, kuwa kale ay bedel ay ka noqon karaan. aduu kala dooro kaa doonaysa ku bedelo wey. waa inagii nidhi waxaanay taasi muujinaysaa farqiga udhaxeeya caamka iyo mutlaqa, oo caamka cumuumkiisu waa shumuuli, oo afraadda uu magaca u yahay dhammaantood buu hal mar ku tusinaya. muطlaqana cumuum baa ku jira, laakiin cumuumkiisu waa bedeli, oo afraaddii oo dhan hal mar kuma wada tusinayo, ee wuxuu kuu tusinaya calaa sabiili bedel, oo qaar aan cayinayn oo kuwa kalena ay bedel ka noqon karaan ayuu ku tusinaya. marka halkan culimada qaarkood waxay raaciyaan almustaqriqu lijamiici afraadihi dufcatan bilaa xasrin, dufcatan bay raaciyaan. oo dufcatan maxay saaraysaa? muطlaqay saaraysaa, oo muطlaqa laftigiisu yastaqriqu jamiica afraadihi, afraaddiisa oo dhan wuu koobsanayaa, laakiin dufcatan hal mar ma wada koobsanayo, ee calaa sabiili bedel buu u koobsanaya. waxaa kaloo ay raaciyaan bixasabi wadcin waaxidin, lafdigaasi afraaddiisa oo dhan koobsanaya, oo ku koobsanaya dejin loo dejiyey inuu afraadoo dhan hal mar wada tusiyo. oo maxaa bixasabi wadcin waaxidin qeydkaasina muxuu caama ka saaraya? wuxuu ka saarayaa almushtarak, oo iminka mushtarag oo afraaddiisa oo dhan wuu koobsanaya, laakiin bixasabi wadcin waaxidin ku koobsan maayo. mushtaraga looma dejin oo alfaaddiisa oo dhan waxaan ujeedaa afraaddiisa oo dhan hal mar ku wada tusiyo. mithaalu dalika waxaa tusaale u ah alcayn oo kale, imika alcayn lbaasiratan waxa lagu arkaa o dhan alcayn ljaariya, isha biyahana waa la idhaha. alcayn oo dee dahabkana waa la idhahda alcayn, aljaasuusna cayn waa la idhahdaa. laakiin ereyga alcayn waxa loo dejiyo o loo cayimay inuu kuwa hal mar ku wada tusiyo, suurtagalma inuu kuwa hal mar ku wada tusiyo looma dejin, ee mar waxaa loo dejiyey alcayn lbaasira, marna alcayn ljaariya, mar kalena alcaynoo dahabkiya, mar kalena alcaynoo jaasuuskiya. walihaada haddii ay cumuum laguma xambaari karo. haddaan ku dhahdo imika maala lam ara caynan,
ma odhan kartid wax allaale waxa cayn la yidhaahdo inaanad arag baad sheegtay ma odhan kartid oo cayn baasira maad arag oo jaariye maad arag oo jaasuus maad arag oo daa maad arag lama odhan karo taas waayo lafdigan alcayn looma dejin inuu macaanidaas iyo afraadda hal mar wada tusiyo dufcatan mid walba si gooniya baa loogu dejiyey markaasee loo fasiraya hadalkaa la mara cayn hadday la socoto qariino tusinaysa cayntaasi tahay taasaa lagu xambaari doonaa haddii tusaalahaan dee lay weydiiyo laygu yihi hal ra'ayta hunaaka caynan jaariya deetana lam ara caynan dee su-aasha qariinaa tusinaysa tanaan idhi maan arag inay tahay ishii biyaha durduraysa soo racad maaha haddaan la helin qariino tusinaysa mushtaraga macaanidiisii ka loo jeedo mujmal buu noqonaya waa laga tawaqufaya laguma camal falayo ilaa bayaankiisa la gaadhayo oo la helayo marka bixasabi wadcin waaxidin allafdu lafdiga almustaqriqu koobsanaya lijamiici afraadi afraaddii loo dejiyey inuu tusiyo oo dhan dufcatan hal mar wada koobsanaya waa si u baxo mutlaqi isagoo hal mar ma wada koobsanaya calaa sabiil bedel buu ku tusinaya bilaa xasrin koobsanaya koobis la-aan taana waxaa ku baxaya wixii afraaddiisa oo dhan ku tusinaya laakiin xasri uu la socdo bardhamaad inuu leeyahay la socoto kaana caam lama edha bixasabi wadcin waaxidin ku koobsanaya dejin loo dejiyey inuu afraadda hal mar wada tusiyo bixasabi wadcin waaxidin qeydkaasina wuxuu saarayaa baynu nidhi waxaa loo yaqaano mushtaraga oo mushtaraga looma dejin afraaddiisa inuu wada tusiyo ee midba gooni baa loogu dejiyey ayib tusaalaha sheekhu u keenay caamka in alabraara la fii naciim alabraar waa lafdi oo ficil dee maaha waana mustaqriq lijamiici afraadi oo kullu birin baa soo gelaya waana bilaa xasrin oo abraartuma meelay ku dhamaadaan bay leeyihin si eryada tirada tusiyo kale waa maya dufcatanna wuu tusinayaayo wax allaale waxaa bari la idhaahdo ayuu hal marina wada tusinaya maaha inuuna tusinayo bar ka midoon cayinayn bixasabi wadcin waaxidin oo ereygan alabraar waxaa loo dejiyey oo loo cayimay luqa ahaan mid kasta oo bari ah inuu tusiyo ayaa loo dejiyey marka alabraar imika waa jamac asha ku jirtaana waa istiqraaqiyo bedelkeeda kulli baa la gelin karaa oo ina kula barin baa la odhan karaa mid kasta oo bari ah la fii naciim baa la odhan karaa qaala musanif raximah llah siiq lcumuum haddaba cumuumku waa lafdiga caamka wuxuu tusinayo oo tanaawulu jamiic alafraad wuxuu leeyahy siiq macnaa ereyo si gaara cumuumka markaa u tusiya ayuu leeyahy la soco marka waxaan siiqa la idhaa oo dhan waxay ku binaysan tahay inuu kalaamku yahay allafd walmacna oo cidda le kalaamku waa macnaha oo qura si ashcariyada iyo maaturiyadoo kale iyagu wax siiqa la idhaahdo ma sugayaan siiq lcumuumi buu ihi cumuumka caamnimada tusinteedu 7 waa 7 alawalu maadala waa ku tusiya cala lcumuumi cumuumku tusiya bimaadatihi maadadiisa iyo wuxuu ka samaysan yahay cumuumkugu tusiya wuxuu ka samaysan yahay cumuumkugu tusinaya مثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة ereyadaasoo kale waxa ay ka samaysan yihiin oo ayaaba cumuumka tusinaya kul waa aqwى siiq اcumuum bay dhahaan siiqooyinka ama ereyada cumuumka tusiyata u xooga badan weeye oo tashmil اlcaaqila wagayr اlcaaqil waxay caam ku noqota caaqil iyo hayr اlcaaqil iyo mudakar iyo muanath laakiin kullu waxay cumuum tusisaa markay tahay fi siyaaqi alihbaat oo hadduu nafyi ka horeeyo cumuum kuma tusinayse salbulcumuum baabay ku tusinaysaaba
marka tiraahdo qaama waxa istaagay kullu tulaabi markaasay cumuumku tusinaysa waa nafyi kama horeeya ardaydii oo dhan oo mid ka harsanay baa istaagay laakiin haddaad tiraahdo lam yaqum kullu tulaab ardayda oo dham inaan istaagin kullidaasi ku tusin mayso bal salbul cumuum bay ku tusinaysaayoo inaanay wada istaagin ee dee qaarna ay istaageen ay dhici karta inay qaar istaageen qaarna aanay istaagin tusaalahaan inaga inagu idhahdee ardaydii oo dhami maanta ma iman macnaheedu midna kamu iman miya maya qaar baa maqan weeyaan macnaheedu qaar way yimaadeen qaarna way maqan yihin marka kullu waxa shardi ah say cumuumku tusiso an takuna fi siyaaqi alithbaat hadday tahay fi siyaaqi nafyi cumuumku tusin mayso bal salb alcumuum cumuumka nafyintiisa ayay ku tusinaysaaba دلالة كل على العموم والدلالة قطعية تصنت كل أي كتسنس عمومك والدلالة قطعية وهي إنا كل شيء خلقناه بقدر إن الله بكل شيء عليم اصنعوا كل شيء إلا النكاح كل بدعة ضلالة وحلال وحي الشريعة بدعة وتقارن بدعة شرعية بالوجه ده الشارع بها هذا إياه وما وركرتيد سوكا عمر نعمل بدعة هذه عمر bidcadu ka hadlayay waxa shariicadu bidca u taqaana ma ahayn waxa luqada carabeed bidca lagu sheegi karo dhexdeeda wakadalika imaam shaafici rahimahullah isagoo hadalka ka duulaya cumar wuxuu yidhi albidcatu bidcatan bidcatu madmuuma bidcatu mamduux hadalka cumar laftiisaanu soo qaatay mima yadullu shaafici bidcadan mamduuxa iyo madmuuma u qaybinayna tahay albidcatu allugawiya ee aanay ahayn البدعة الشرعية وحا ميزانك الشريعة بدعة كل نقرية إن أنا يهين طيب كل جميع بالله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا حالات دنتين أم يقول نحن جميع منتصر لكن دلالة جميع على العموم وظاهرة دلالة ظاهرة وهي دلالة قطعية معها waxa kaloo kullu ay jamiicu kullu kaga duwan tahay jamiicu la tudaaf illa ila ma'rifa kullu ma'rifiya nakira labada waa loo idaafeeyaa kullu insaanin kullu insani laakiin jamiic waxa loo idaafeeyaa ma'rifu baa loo idaafeeyaa jamiicu الناس jamiicu الطلاب jamiicu الرجل dema oran kartid nakira looma idaafeeyo kaafa iyaduna kullu bay la mid tahay xagga tusinta cumuumka qaatil mushrikiina kaafa qaatiba iyo caama iyo iyaguna waa la mid ayib siiqada labaad ee tusisa cumuumku waa asmaau shard waa magacyada macnaha shardinimo faa'iideeya marka asmaau shardi marka la yidhi حروف الشرط يبقى ماشي كبحيس حروف الشرط يدو عموم مفايديس كقوله تعالى إلى هوري من متكستو عمل السمية صالحا عملا وصالحا فلنفسه نفتي سوس بناضي عمل كصالح marka mantan imika waa ismu shardi weey marka waxay caam ku tahay kullu man camila saalix fa ayna ma jiha kasto tuwallu ay u jeestaan fa thumma halkaasi wajhu Allah weey marka aynaduna waxay caam jamiicu al-amkina bay caam ku tahay وأينون ما دون ومؤكدة واسم الشرط مركا يدل على عموم المكان أيما امرأة نكحت نفسها أي بايد ولا منها اسم الشرط يعني أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل
waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbu mid kastoo ilaahay tala saarta ilahay baa ku filan man tashabaha biqowm mid kastoo qowm isu ekaysiiya fahuwa minhum iyaga ayuu ka mid yahay marka xuruufu shardiga cumuuma faahisa in iyo idaa iyo kuwa lamidka iyo khusuustoona nooca saddexaad siyaq alcumuum ka mid waa asmaa listifhaam waa magacyada lagu faham dalbo ama wax la isku weydiiyo ka qowlihi tacaala ilaahay uu yidhi faman yaأtiikum bimaa'in maciin faman keebaa yaأtiikum macnaa idin siinaya idinla imanaya bimaa'in biyo idinla imanaya dhe maciinin marka mantu waa ismu istifhaam yacumu kula axad maada ajabtum lmursaliin baa lamida iyaduna maada iyaduna ismu istifhaamta wa jamiica alajwiba jawaabaha oo dhan ayay caam ku tahay fa ayna tadhabuun xaggaad tegaysaan manaa aynadu iyaduna waa ismu istifhaam istafham biha can azamaan jamiic alazmina bay iyaduna caam ku tahay alamkina baan ujeeda jamiic alamkina meelaha oo dhan xuruuf listifhaam iyadu cumuum ma faaideyso sida hal oo kale iyo hamzat listifhaam iyo hal jaaa zaydun zayd ma yimi hal cumuum ma tusinayso nooca afraad waa alasmaa lmawsuula oo magacyada ismu mawsuul la idhaahdo jumlad silaa ay ka dambeyso iyo caayid u noqonaya sida alladii iyo allati iyo wakadalika man ta mawsuulada iyo maada mawsuulada iyo cumuum bay faaideysa ka qowlihi tacala ilahay u ihi waladii ka jaaa la yimi bisidqi runta oo sadaqa rumeeyey bihi sidqigaa u la yimi ulaaئika kuwaasi hum iyagunba almutaquuna kuwa taqwadoodu ay dhamayska tiran tahay marka aladii waa ismu mawsuul cumuum faaide waa mid kasta oo sifadaa yeeshay oo jaaa bisidqi wasadaqa bihi ayaa soo gelaya inay cumuum faaideynaysan qaraain tusinaysaaba ayadda ku jirta oo ulaaئika waxaa lagu ishaaray dee ismu ishaaraha jamca tusinaya hum lmuttaquuna damiirulfasligiina isna mid jamc tusinaya baa laga dhigay wakadalika almuttaquun huwa almuttaqi lama odhan almuttaquuna baa la yihi marka alladiidu inay cumuum faa'ideynayso ay qaraaintaasoo dhami tusinayaan waladiina kuwa jaahaduu jihaaday fiina daraadayo lanahdiyanahum waanu hanuunin subulanaa baanu ku hanuunin marka aladiina waa ismu mawsuul weyi ina fii dalika ina lacibrata wax ku qaadashaa fii dalika arrinkaa ku sugan liman yaksha aladii yaksha mantani waa ismu mawsuul ka ilaahay cilmi kaga baqaya ayay cibra ugu sugan tahay marka wuxuu caam ku yahy kulu man yaksha rabbahu wa qowlu walilaahi ilaahay ayaa iska leh maa fi samaawaati waxaa samooyinka ku sugan iyo wamaa fi lard waxaa samooyinka ku sugan oo dhan iyo wamaa fi lard waxa dhulka ku sugan oo dhan marka maadaasi waa ismu mawsuul ee alladii fi الsamaa waladii fi lard wa qowluhu fankixuu guursada maa taaba lakum min الnisaa ey aladii taaba lakum ka naftiinu muhato ama ay jeclaato min anisaai dumara ka midood macnaa bikria ama hayiba ama ayaa loo jeedaa marka wuxuu caam ku yahay xagga awsaafta maa xagga cadadka ayib marka maada iyo manta mawsuulada asalku waxa weeye mantu inay tali lcaaqil maaduna ligayr alcaaqil lakiin waa sida haalibkaa waxaa dhici karta maa oo lagu isticmaalay fi lcaaqil sida aayaddanba fankixu maa taaba lakum min الnisaa shinqiiطina wuxuu ihahdaa waxa dumarkii oo caaqilaada maada loogu isticmaalay lanna maqsuudku hadda waa wasfiga oo waxa weeyaan xagga bakaarada iyo thuyuubada iyo dhinacaas ayib
man oo ligayr alcaaqila iyadana qur-aanka way ku soo aroortay marka waa sida haalibkaa qaacidadaasi ana man almawsuula lilcaaqil wa ma almawsuula ligayr alcaaqil waa qaacida aqlabiya wey waayo siiqada shanaad waa annakiratu waa nakirada fi siyaaqi nafyi dhacday nafyi dabadii aw inahyi ama nahyi dabadii aw ishari ama shari dabadii aw ilistifhaam ilinkaari ama su-aasha diidmada looga jeedo dabadeed dhacday waa nakiratu fi siyaaq ihbaat maxay faa'idaysaa waynu nidhi ilaaq oo bacdi aan cayinayn bay tusisaa waxaa laga soo reebaaun haddii ay imtinaan uu la socdo mana sheegad waanzalnaa min asamaai maan tahuuraa taasoo kale waa nakira fi siyaaq ihbaat lakiin cumuum bay faa'ideynaysa waayo imtinaan mana sheegashaa la socota wakadalika de fi siyaaq shar ka qowlihi tacaala sida qowlka ilaahay uu yihi wamaa min ilaahin macbuud xaqii ma jiro ila allahu ilaahay mooyaane marka iminka ilaah waa nakiro maa naafiyaabaa ka horeysa weliba minna way gashay oo nakiratu fi siyaaqi nafyi daahir bay ku tahay cumuumka lakiin hadday min gasho waa nasun fi lcumuum waxaan cumuum ahayn ma ixtimaasho wamaa min ilaahin ila allah qowluhu ilaahay u hi wacbud llaha ka qowlihi ilahay uhi wacbud llaha ilaahay caabuda walaa tushriku aw shariik ila bihi ilahay shayan shay-an taasi waa nakiro waxaana ka horeeya nahyi oo laadaasi walaa tushriku ku jirta waa maxay waa naahiye weeye marka ayi shay waxnaba ilahay looma shariik yeeli karo qowluhu ilahay uhi in tubduu haddaad muujisaan shay-an aw tukfuu amaad qarisaan faina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday caliiman mid og bikuli shayin marka iminka shay-an waa nakiro nakiradaas waxay dhacday fi siyaaqi shar oo inta ayaa xarfu shardiya marka cumuum wax kasta oo aada muujisaan iyo wax kasta oo aada qarisaan faina allaha kaana bikuli shayin caliima wa qowlu ilahi uhi man ilaahun ilaaheebaa gayr llahi ilaahay aan ahaynoo yaأtiikum idinla imanaya bidiyaain iftiin marka iminka ilaahun waa nakiro nakiradaasi waa fi siyaaq istifhaam ilinkaari oo istifhaamta inkaarigaahi macna nafyi bay leedahay oo laysa ilaahun gayr llahi yaأtiikum bidiyaa in la yidhi bay ka dhigantay marka nafyigiioo qaab su-aaleed loo dhigay weeye marka istifhaamta inkaariga ay nafyiga maxdiga way ka xeel dheertay xagga tusinta ay diidmada tusinayso oo iyadu waxay tusinaysaa nafyi maca taxaddi oo ma jiree ayay ka dhigantay in la yihi ma jiree bal hadduu jiro adigu keen marka nafyiga maxdiga ahi taxaddi baan la socon carin la carinayo ayib asaadis siiqada saddexaad almucaraf waa ka lagu macrifeeyey bilidaafati lagu macrifeeyey in loo idaafeeyey macrifo loo idaafeeyey mufradan sawaban waxaa isku mid a kaana ahaya mufradan mufrad ahaya kaa la idaafeeyey am majmuucan ama jamc ahaya almucaraf bilidaafa ka lagu macrifeeyey idaafo isaguna cumuum buu tusiyaa uli ka qowli ilaahay u uhi wadkuruu xusuusta nicmat allahi nicmada ilaahay calaykum dushiina uu ku galladaystay oo ku nicmaystay marka iminka nicma waa mufrad mudaaf ilaa macrifa marka cumuum buu tusinayaa nicmo qura maaha waa nicamka ilaahay oo dhan nicmooyinka ilaahay fadkuruu xusuusta aalaa allahi nicamka ilaahay lacalakum tuflixuun si aada u liibaantaan marka iminka aalaa waa jamc mudaafa waa mudaaf allahina waa mudaaf ileyh marka cumuum buu tusinaya wuxuu caam ku yahay jamiica aalaaء illaah
ayuu caam ku yahay. walaa tubطiluu acmaalakum baa la mida acmaal waa jamac mudaafa ilaa macrifa cumuum buu tusinaya. xurimat calaykum umahaatukum oo umahaadka waa mudaaf waa jamac mudaafa ila damiir ka cumuum buu tusinaya. in allaha warasuula yanhayaanikum can luxuumi اlxumr اlahliya. luxuum waa jamc mudaafa ilى اlxumr kaasina cumuum buu tusinaya. ayib almucarafu ka toddobaad almucarafu ka lagu macrifeeyey bial al lagu macrifeeyey ashii alistiqraaqiyati ee ahayd mid afraadda magaca ay gashay oo dhan koobsanaysay. mufradan sabab waxa isku mida kaana haya kaa al lagu macrifeeyey alistiqraaqiya kaana haya mufradan am majmuucan ama jamca haya ka qowlihi tacala la ui khuliqa waa la abuuray alinsaanu insaan oo dhan daciifan xaalo iyo mid taag daran. wa qowlihi la ui waidaa balaga markay gaadhaan alatfaalu caruurtii oo dhami minkum xaalo idinka mid alxuluma ay gaadhaan an albuluuq falyastadinuu idan ha idin weydiistaan kama stadana aladiina se idan u dalbayaan kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey. imka alinsaan iyo alatfaal mid waa mufrad alinsaan alatfaalna waa jamc labadabana asha ku jirta waa al istiqraaqiya oo ashu istiqraaqiya cahdiya iyo jinsiya saddexdaasay noqotaa. marka asha magaca ay gashaa uu cumuum faa'iideynaya waa asha istiqraaqiga. al alistiqraaqiya markaa daabitkeedu waa maxay? waa taa haddii meesha iyada laga tuuro oo kullu meesheeda la geliyo macnuhu yastaqiim lmacna wahiy alatii idaa xudifat wudica mawdicuhaa kullu istiqaama almacna. waa ta iyada marka meesha laga tuuro ee meesheeda kullu la geliyo macnihii mid saxa u noqonayo toosan. oo iminka halkaa al insaanu balaasha ku tuuro kullu insaanin dheh ya wa khuliqa kullu insaanin yani ashun de meesha ka tuur baan ujeedaayo meesheeda kullu geli macnuhu waa ansaxayaa dee. waidaa balaga kullu طiflin haddii asha meesha laga tuuro oo kullu la geliyo macnuhu waa ansaxaya. marka ma almucaraf bial baa la odhanayaa mise almucaraf bilaam? arrintaasi nuxaadu culamaa luqa way isku khilaafaan. wax weynina kolley kuma jira waxaanay ku salaysan tahay hamsadan al ku jirtaa ma hamsatu qaطcin ba mise waa hamsatu waslin taasuu khilaaf ku salaysan yahi. lakiin waxaad ogaataan asha istiqraaqiga inay tita marka meesha iyada laga tuuro ee meesheeda kullu la geliyo macnuhu sax noqonayo alistiqraaqiya baa la dhaha. marka cumuum bay faa'iideysaa alistiqraaqiya oo daabidu alistiqraaqiya ana idaa xudifat waubdila makaanuha kullu istiqaama almacna. ayib wuxu uhi musanifku raximah اllah waama almucarafku ka lagu macrifeeye miyaa biashi alcahdiyati ahayd mid wax hore loo sheegay ama hore maanka loogu hayay ku tusinaysa. fainahu isagoo bixasabi machuud kaa machuudkaa hore loo ogaa ama hore loo soo sheegay siduu yahay un weeye. ile lafdigiibaa laba jeer la sheegaya. mar baa la sheegay haddana mar labaad baa la sheegaya. mar baa la sheegay haddana mar labaad baa la sheegayaa. marka marka hore haddii uu macrifo ahaa marka labaadna macrif muu noqonaya. hadduu marka hore waxaan ujeedaa haddii uu caam ahaa mar labaadkana caam buu noqonaya. haddii marka hore aanu caam ahayn mar labaadkana caam noqon maayo. fain kaana hadduu yahay machuudku caaman kaa hore loo sii ogaa dihniga lagu hayay ama hore loo sheegay hadduu caam yahay
فالمعرف كأشا عهديدا لغو معرفيه ودي كمرلبات كلا شيغينا عام وي وإن كان هدو يهي كمعهود كهور الله صور شيغي أما هور الذهني لغو هاي أما ودي حاضر كايبا خاصة هدو يهي فالمعرف كأشا عهديدا لغو معرفيه كمرلبات كلا شيغينا خاص وي خاص مركا أشا عهديدا هي دي موي فايدة سايو تعريف هو اسم كده معرفه كدكتا لكن اسكاد يد عموم فايدته والال العاديه لا تدل على العموم ولا على الخصوص عموم ما تصيص منام في عموم يده اسم كا هور الله soo sheegay hadii uu yahay marka hore la sheegay caam mar labaad kan ashu ay ku jirtana caam buu noqonayaa ashu xabayadu u tarimayse inuu marka hore caam ahaa buu mar labaad kana caam ku noqday haddii marka hore la sheegay aanu caam ahayn mar labaadka la sheegay ashu ay ku jirtana ashu cumuum u kordhin mayso عشان يد العادية لا تدل على العموم بذاتها يد السيد عموم تص مركا وحا الله يقان عهد قوامح العادية بين له وعلوان يكون عند السامع علم بالشيء وإن كان هذا الكمقليا الشيء هو أوغا فيذكره المتكلم ترى الشيء هو أوغا كان الله هذا يوشيغيا محلا بعل يدو الله إلا سعوته وسيدو هو أوغا دي أما ما أنكو كوهي أما هورات دي الله أغو الشاقيبا رسامر لباد للشيغيا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا سيدان فرعون رسول قدر رسول كلام الشيغين وعهد ذكر يدي وقفك الله الله يا أوغا وايو مرلباتك مركا لا شيغي هرو اوغا وايو دي هورا لوغو شيغي فعسى فرعون الرسول رسول كان مرلباتك لا شيغي وكي هوراون marka ashan ku jirta magaceeda maxaa la raahdaa caadiye baa la raahdaa oo macna waxa tusinaysaa kii marka hore la sheegay inuu yahay akhadnaahu akhdan wabila طيب marka caadigu caadi dhikriya buu noqdaa hadii hore loo soo sheegay atri مثلا اشتريت قلما قلم بسويبس قلم بات شيكتي سو markiis ثم كتبت بالقلم القلم اذا ضب waa kii hore loo sheegay oo naasha ku jirta waa caadiye weey waxa tusinaysaa kii hore loo sheegay inuu caadiga nooc labaad waa caadiga dhihniga oo shayba aad maanka ku haysa oo bari hore aad su'aal lagaaga sheekay oo ninba wuxuu ku yiri su'aal ahaan ma tatil bintu inanti way dhimatay odayban ku xuustay maalin dhaalkan saaka laha inanti beerka ka jirreed way dhimatay wuri marka al bintu ashan ku jirta waa ahdiyo oo hore looma soo sheegin be dadka la hadlayaaba dihniga ku hayay bari hore laga la sheekaystay عادي ذهني يبغى هذا معنا إن أنت عاد أوجيد وركيد هاي سبي كده أنت القف كل جولي عادي قصد حد وعادي حضوري الشيء والشيء ده مش حاضر قوابة اشتريته حنسوي بسدي هذه العلبة من الماء ما اشتريته هذا الكتاب هو كتاب حاضر وي أشا كترتا والعهدية طيب حتى بأشا عهدية ده هي عهد يقول نوع الدورة يبقى النقطة لا تدل على العموم ولا تنفيه كم كائق الشيء مركا معهود كأه محوط السنة يا إساقو وحيكون حرانتا هاي مركا هوريلا الشاقي wuxuu tusinayay haduu caam ahaa markan ay ashu gashayna cumuumkii uu tusinaya haduu khaas ahaana markan ay ashu gashayna khusuuskii uu tusinaya intaas inoo sheegay sheekhu waaye wuxuu sheekhu raximahullahu ta'ala مثال العام كمركي سوره عام ka waxa tusaale u ah qowlu ta'ala ilaahi إذ واذكر حس إذ وقت قال ربك ربك للملائكة إني أنا خالق
waxaan abuuraya basharan min tiini dhooban ka abuuraya faidaa sawaytuhu markaan simo wanafaktu aan afuufo fiihi isagaan ku afuufo min ruuxi ruuxdeedan abuuray faqacuu dhaca lahu isaga u dhaca saajidiin xaalaatin kuwa sujuudsa fasajada way sujuudeen almalaaikatu imika almalaaikatudan dambe ma malaaig kala mise waa kii hore loo sheegay un waa kuwii hore un marka ashan ku jirta waa maxay waa caadiya marka hore la sheegay soo cumuumay tusinayn oo kumay jirin waxa weeyaan mucaraf bial soo ma ahayn ya dee mar labaadkana ila waa isagii une cumuumkii un ayuu lafdigu tusinaya fasajada way sujuudeen almalaaikatu kulluhum dhammaantood baa sujuuday ajmacuuna iyagoo dhan baa sujuuday wa mithaalu lkhaas ka macahuudka ee khusuusku tusinaya waxaa kamid a qowluhu tacala ilah uhi kama arsalnaa ilaa fircawna rasuula facasaa fircawnu arasuula imika arasuula asha ku jirta waa cahdiyo iyadu cumuum ma sugaysa mana didaysa baynu nihi maxaynu eegeynaa un marka hore la sheegay macaan buu ahaa rasuulkani mise khaas buu ahaa dee marka hore muxuu ahaa dee khaas buu ahaa soo maa dee waa nakira fi siyaaqi ithbaat rasuul mucayana baa loo jeeda oo ah nabiyullaahi muusa mar labaadkan ashu ay gashayna khaaskiisii unbuu ahaanaya wa ama almucarafu ka lagu macrifeeye miyaa bial allatii ashaasoo libayaan iljinsi jinsiga shayga ay gashay caddayntiisa u ahaatay falaa yacumu kaa asha jinsiyada lagu macrifeeyey ma koobsanayo alafraada afraaddii u magaca u ahaa oo dhan eeg asha waa noocii saddexaad aljinsiya baa la idhahdaa waa asha alatii libayaan iljinsi inay jinsiga shaygaa la sheegay jinsigiisa xaqiiqadiisa inay caddayso ayuunbaa markaa loo keenay marka iyadu libayaan aljinsi ay libayaan alxaqiiqa marka cumuum ma tusiso sida xadiidka inama almaau min almaa imika ashan almaa ku jirtaa istiqraaqiye maaha mana aha cahdiyo oo almaada dambe almaagii hore loo sheegay maaha la soco waa laba biyo biyana waa kuwii qofka ka imanay biyana waa kuwii lagu meydhanayo wey wainamaa yajibu alguslu bilmaa biyo in lagu maydha waxay waajibaysaa min almaai min ajli khuruuji ilmaa markay biyo soo baxaan marka ashani biyo oo dhan looma jeedo istiqraaqiye maaha biyo hore loo sheegayna looma jeedo jinsulmaa baa loo jeedaa waxaa la mida siduu sheegay musanifku raxima allahu tacaala wuxuu yidhi faidaa qulta haddaad tira arajulu ninku jinsiga nin khayru waa ka khayr badanya min almarati jinsiga gabadh aw irijaalu ama jinsiga raggu khayrun waa ka khayr badanya min annisaa jinsiga dumarka falayse almuraadu muraadkuma ana kula fardin fardi kastoo min arijaali ragga ka midi khayr inuu ka khayr badanya min kuli fardin fardi kastoo min annisaai dumara ka mida labada jinsi baa lays garab dhigayaa jinsi ahaan baa laysu garab dhigaya wainama almuraadu ujeedadu waxa wey ana hada ljinsa jinsigaa rag la ydhaahdaa khayrun waa ka khayr badanyay min hada ljinsi jinsigaa dumar la ydhaahdo waxaa la mida alcarabu afdalu min alcajab haddii la idhaahdo ashu dee istiqraaqiye maaha oo kulu carabiyin afdalu min kuli cajamiyin maaha taas waxay ka hor imanaysaa qowl اllahi tacaala ina akramakum cinda allahi atqaakum macnaheedu waxa weyaan jins lcarab marka carab jinsi ahaan loo eego ayaa jins cajam ahaan oo jinsi loo eega ay ka fadli badanyihin ka sareeyaan lakiin haddii qof qof laysu garab dhigo dee waa laa fadla licarabiyin calaa cajamiyin suu uhi nebigu calayh isalaatu wasalaam marka qof qof laysu garab dhigo waxay ku kala fadli badnaanayaan maaha carabnimada iyo cajamnimada ee waa maxay waa taqwada ina akramakum cinda allaahi atqaakum marka ashani waa jinsiya cumuum ma faa'idaysan yadu wainama almuraadu ana hada jinsigani khayru waa ka khayr badan min hada ljinsi wain kaana haba ahaado arinku qad yuujadu in la heli karo min afraad الnisa dumarka afraaddooda in laga heli karo man mid huwa isagu khayrun ka khayr badan min bacdi rijaal bal kaiir min الnisa baa la heli gabadh baa la heli karaa kumanaa nin ka khayr badan
bal malaayiin nin ka khayr badan gabadha muslimadda ahay gaaladoo dhan oo la isu geeyey raggooda dumarkooda way ka khayr badantay wakadalika gabadha waxa weeyaan sunniyadda ahi ee salafiyadda ahi rijaalu ahli lbidac way ka khayr badantay wakadalika gabadha mustaqiimadda ah ee saalixadda ahi ragga faasiqiinta waa ka khayr badantay nacam marka markay fardi taagan tahay raganimo iyo dumarnimo laguma kala fadli badnaanaya maxaa lagu kala fadli badnaanayaa awsaafta ayaa lagu kala saraynaya allahu aclam sal allah calaa nabiyina maxamed